وأنم بالله حكمة بدن ودين تمخلص وها لكن تاريخ يهند وقرآن بدن وبين أبو ريك السماء بالله هذا سمعة سوى حلوية ليه مالمه الدولة نمدي سوود دم بيسي أما مركو الدولة قبصدي سوى آخر أيام الدولة العثمانية waxay ahayd baa la yiraahdaa waqti ay duyuun badan deyn aad u tiro badan leh dawladda lagu leeyahay waxa uu xukunka fuulay iyadoo lagu leeyahay baa la yiraahdaa 1 milyaar iyo nisfu milyaar liira dahabiya waa wax u dhigma lacagta maanta hadii lagu qiimeeyo boqolaal bilyan oo dollar lacag u dhigmaysa weeyaan dabeetana wuxuu tijaabiyay inuu ururiyo dawladda kharashkeeda uu soo yareeyo ilaa iyo lagu tuhmay ninkan bakhaylnimadu waxbay u dhintay ilaa la yiraahdo taa dhinaceeda waxa socday iyadoo yuhuudda lacag badan ay soo bandhigayaan iyo nimanka reer galbeed boo la leeyahay deyntan iyo waxaan oo dhan waa laga cafiyi karaa ama waa laga maarayn karaa haddaad ogolaato yuhuuddu inay Falastiin soo degto markuu diidayna mu'amaradii 1909 ee isaga lagaga qaaday madaxtinimada ama boqortooyada laga zuuliyay ayaa timi mudakiraadkiisa wuxuu ku qoray buugiisi xusuus reebka wuxuu ku qoray 1895 1995kii waxyaabuu ku qoray waxa ka mid ah buu yidhi yuhuudi yurub dhexdeeda xoog weyn bay ku leedahay buu yidhi aanay bariga ku lahayn أكثر الدول الأوروبية وحي جعلين يهود سكسور ران أو فلسطين كينان يقول نعي بيقول عرق السامي يبينوا ننك عدد حجوجه وحي نجا كركي النصارى بولين إنه فكرة ده وقد دكتونا إنه إن يهود فلسطين دشينه وأن أجي بيقولوا يهود وأنا قلنا يهدي دجان أنت كم كوبنانا يعني وحكى لي صبح دونا isaga fikradii la soo bandhigay waxay ahayd community yar oo yahuuda oo beeraleeya meelaha la dadajinaya waa dad iska noolaanayuun baa la lahaayay wax dhib oo kale ma geysanayaan isna wuxuu lahaa malahan yuhuud ka aqaana inta kuma koobmayaan waraaq buu u qoray marka la casilayay sheekhiisii la odhan jiray maxamuud afandi abishamaat waa nin isaga sheekh u ahaa buu waraaq u qoray waraqda wuxuu ugu cadaynayaa sababta looga riday khilaafadu inay sababtan tan tahay anigu kamaan daadigin buu leeyahay khilaafadii islaamiga ahaa mooyaane sababta keliya lay diiday waxa weeyaan buu yidhi jimciyatu litixaad wataraqi waa jimciyaddii samaysay jamhuuriyaddan dambe ee turkiga ayaa igu qasabtay buu yidhi inaan ka dhaadhaco khilaafada اتحاديين تاسي waxay doonayeen buu yiraahdo ama waxay ku adkaysteen inaan wadan yuhuud siiyo oo ardil muqaddasa Falastiin aan ka siiyo annasi kama dambaysa baan u diiday buu yiraahdo arrinka waxay ii ballan qaadeen buu yiraahdo 150 milyan oo liiro oo Ingiriis oo dahaba in la siin doono hase yeeshee waan diiday waxaan ku idhi buu leeyahay isagoo sheekhiisii la hadlaya innakum law dafa'tum mil ad-dunya dahaba فضلاً عن 150 مليون ليرة إنجليزية ذهب فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي هذا أدونكو مجيو ذهب إستيسان بقول يكون تنبأي مكشيك إنسان مليونين مرنبا ما أقبل يينا يهود فلسطين سيبوي سادر هذا وحيسكو وافقين إنه ضيق لقا قادة بغرطوية ده لو مسافرية مقالة كتالة أو سالاني كليرة هذا إن لقبت سيو إلهي وحنكم هذين يا أبو مركز الشيخ يسوق قري إن أنا الدولة العثمانية عالم الإسلامي عيبتا وسوهينين إن دولة لقد نحتاجه لك فلسطين وحيد عيابها دعاني سو مركز وحقولوا أركا إنه أركاد ديدي إنه يوقف لانتهي أمان وحيد دون عيابها دعاني الدول كي عثمانيين تا qaybtoodii dambe boqoradoodii maadaama ay daciifeen waxay isku dayaan yurub inay kala xadxadaan taasina waxay keensatay inay isku dayaan inay laalushaan wadannada qaarkood مثلا سلطان عبد الحميد كاني إمبراطوركي جيرماني بروسيا غليوم الثاني دول بوكسي جبل السهيون أما جبل الداود ما شاء الله يقارنه وأمروا بوغشوا ويمكن سداد بقول يا سداد يا سجاشنكي وحنا كدسن كنيسة الله يقارنه
كنيسة نياحة العذراء أما الرقاد السيدة مريم وميلا الرميسنايان إنay tahay cashadii u dambaysay ee nebi ciise cunay halkuu ku sii cunay ee ardaydiisii cagahooda ku maydhay isla markaa markii isaga saliibka la saarayna waa meeshay maryami fadhiisatay bay yidhaahdaan markaa wadaadda raahibiina oo gaar oo bandakiyiin la odhan jiray albandaktiya baan filaya in la yidhaahdo oo katholiga ka tirsan ayaa kaniisadaasi loo dhisay markuu ka khudbadaynayay khalyuumi thaanina wuxuu yidhi saakinu اljinaan السلطان عبد العزيز خان ayaa dhulkan noo hadiyeeyey buu yidhi dabeetana waxaan ka dhisay kiniisat المخلص cabdilxamiid السلطان cabdilxamiidna mid kaluu noo hadiyeeyey tii hore kaatoligaan u dhisee ta labaadna injiiliyiintaan u dhisi doonaa buu yidhi aadna waxaan ugu mahadnaqayaa salaatiinta aalu cuثmaan waxaa kaloo ka mid ah waxyaabihii dhulalkii ay bixiyeen ee nimankaas siiyeen dowladda faransiiska oo ay siiyeen bimaristan ka mida wixii uu dhisay salaaxudiin alayuubi calaa kulli xaal haddaan soo duuduubo ceebahoodaa iska dhaafo waxa muuqanaysa uun salaatiintani inay daciifeen qudus markaan soo ururiyo salaaxaddiin dabadii nolol fiican bay ku noolayd labadii wiile isaga ka tirsanaana ee ka dambeeyana waxbay bixbixiyeen cahdilmamluukina waxbaa ka jiray laakiin haddaan soo koobo addawla alcuhmaaniya oo dhan iyo warkeedaba الدولة العثمانية هي يهود هدان قضية دودة صوكوبو سليمان القانوني مركي وهيستي كن شنبغولية لباطن إلا كن شنبغولية لحية لحدنكي يهودي لغسو إريي إسبين هي بورتغيس مركي مسلمين تلقوا شبيه أندلس يهودي لغسو صاري ومسلمين تمغنغلية ويديستي وحوو أقلادي تركيغا ميشي دونان إني كدقي كران laba meelood se waa idinka mamnuuc buu yidhi falastiin iyo sinay ma degi kartaan laakiin turkiya inteeda kale waan idiin ogolahay inaad meel kasta ka degtaan 1799kii naboleon markuu cagka soo weeraray isagoo fikradda wadaa in yuhuud meesha falastiin la dejiyo wuxuu la kulmay axmed baasha aljazaar nin la odhan jiray oo uga wakiil ahaa dowla alcuhmaaniya waa markuu masar qabsaday weeyaan waa la jabiyey qudusna waa laga ilaaliyey inay nimankaasi degaan 1831kii ayaa maxamed cali baasha inankiisii la odhan jiray ibraahim baa qabsaday laakiin cuhmaaniyiinta dib ugula soo noqday 1840kii marka la soo gaadho 1861kii ilaa 1859kii oo ah wakhtigii uu haystay cabdilmajiid waa markay bilaabantay reer yurub inay soo xambaaraan yurub mashruuc baa loola yimi uu dejiyey lord ka mida loodhadhkii ingiriiska shaftesbury meesha la yidhaahdo lordkeedii isagoo markaasi wasiirulkhaarijiyihi baritaaniya ayaa loo soo dhiibay waxaana laga codsanayaa cabdilmajiid inuu oggolaado yuhuudi inay falastiin degto wuuse diiday 1850kii markay ahayd baa mar labaad lagu soo noqday muxaawaladaa labaadna wuu diiday lawrence olivet nin la yidhaahdo ayaa muxaawaladan waday maraykan buu soo kaxeeyey maraykan baa isku dayay inuu ku cadaadiyo dowla cuhmaaniya inay meeshaas siiso yuhuud markanna wuu diiday cabdilxamiid thaani isna muxaawalaad tiro badan baa lagu sameeyey مثلا عبد الحميد انتي وميشا استي محاولات كالغو سميه تي كواد 1881 waxaa dhacay boqorkii Russia Iskandar الثاني ayaa la dilay isagoo meel bridge oo Petersburg ku taala ka talaabaya bam lagu tuuray bamkii uu ka baxsaday kii wax tuuray isagoo la hadlayaba haddana mid kale bam labaad ku tuuray
dabeetana sidii buu u dhintay markuu dhintay raashiya dadkii joogay waxay eedaa saareen oo ka mid ahaa nimanka sahyuuniyiinta inay ka mid ahaayeen dadkii waxa kan ka dambeeyey dagaal baa lagu qaaday waa la soo masaafiriyey yuhuuddii oo dhan dabeetana turkigaa loo yimi maadaama ay raashiya col ahaayeen iyadoo laga codsanayo yuhuuddaasi inay meesha degto dawla alcuhmaaniya waxay ku adkaysatay sidoodii oo ah falastiin ma ogolin laakiin caalamulislaami kale meeshii aad ka degaysaan waa degi kartaan haddana safiirkii maraykankaa u yimi isagoo arrinkaa kala hadlaya mar kale bay ku yidhaahdeen khilaafa alcuhmaaniya ma ogolin falastiin laakiin dhulka kale meeshii ay ka degayaan ha ka degaan 1878 ayaa mustacmaraddii ugu horraysay oo la yidhaahdo bitah tikfa waa fatxi alamal waa mustacmarad yar oo markaasi beeralay ahayd ee koowaad ay yuhuudi leedahay meeshaa laga dhiso hadda waa magaalo weyn oo 176 kun oo qof ku nool yihiin bale waxay ka mid tahay waadi silicoonka ay israa'iil leedahay ayay hadda ka mid tahay 1882kii ayaa yuhuuddii yurubta bari laga soo saaray waxay degeen iyana mustacmaro yar oo la yidhaahdo rishon letsion hadda waa magaalada afraad ee israa'iil ugu weyn waxaa degan in ka badan 221 kun oo dada waa magaalo hadda jirta 141 sannadood meelaha 1888kii ayaa qaanuun cuhmaaniyi soo baxay oo mancinaya haba yaraatee yuhuudi inuu degi karo mujarad waxaad falastiin ku iman kartaayoo qura baa la yidhi ziyaaro diiniya 3 bilood ka badanna ma joogi kartaan waa inaad ka baxdaan 1892kii ayaa haddana jarmalka waxaa ka yimi majmuuco yuhuuda oo fredman nin la yidhaahda uu hoggaaminayo waxay isku dayeen inay meel xoog ku degaan tuulo iminka ka tirsan sacuudiga oo muwaylax la yidhaahdo waa xagga sare ee sacuudiga bay ku taalla waa deked bay ahaan jirtay berigii hore xujaajtu ay ka soo degto tuuladaa yar imika oo dhulka iska baaba'aan rajaynaya tuuladaa yare muwaylax la yidhaahdo oo markaa raacsiisnayd ee masaarida ayay qabsadeen meeshii bay degeen dawla alcuhmaaniya ciidan bay soo diyaarisay dabeetana waa laga soo saaray meeshii iyadoo lagu fulinaya qaanuunkii ahaa inaanay degi karin qaanuun labaad bay dawla alcuhmaaniya soo saartoo ah inaan dhul laga iibin karin yahuudda marnaba inaan laga iibin karin mar saddexaad markii ururkan zionismka la sameeyey hertisel baa dalbaday inuu cabdilxamiid la kulmo wuu diiday wuxuu soo abbaansaday yuhuuddii doonama nin ka mid oo islaamay oo jaawiid bik la yidhaahdo waxaanay u soo bandhigeen boqorka 20 milyan qaado ninkaasina ha ku arko 20 milyan oo dahaba qaado waa minxa fawriya intaasi hase ku arko hertisel arki maayo buu yidhi minxadiinana iska haysta marka la soo gaadho haddana 1897kii baa waxaa dhacay dagaalkii turkiga iyo cuhmaaniyiinta dhex maray khasiina alcuhmaaniyana waa madhatay hertisel baa haddana yimi isagoo adeegsanaya safiirkii ay ku lahaayeen turkidu waddanka vienna caasimadda vienna ay ku lahaayeen markaasay turkigoo lacag u baahan yidhaahdeen lacag badan baanu ku siinaynaa dagaalka ku gasho laakiin fasaxii hana la siiyo inaanu degi karno falastiin wuu diiday hertisel shirkii uu qabtay 1897kii isla sanadkaa gudihiisa basel lagu qabtay suwaysara lagu qabtay ayuu wuxuu ka soo saaray weedh odhanaysa laba hal mid uunoo la hele mooyaane suurtagal ma aha yuhuudi inay falastiin degto ama qudus ay helaan labadaa hal dawla alcuhmaaniya iyo ka noqoto qaanuunkeedaasi oo in aqbasha ama dawla alcuhmaaniya aynu dhammaanteed ka takhallusno dawla alcuhmaaniya in laga takhalluso ficlanna in dawla alcuhmaaniya laga takhallusaa fududaatay waayo sulطaan cabdilxamiid wuxuu soo saaray qaanuun odhanaya qof kasta yoo yuhuudiya oo ajanabiya
taabiciyad sita waddanka yaga aan ahayn oo raba inuu falastiin soo booqdo siyaarad diiniya ku imanaya waxaan u oggolayaa qura 30 maalmood oo qura inuu joogo wixii intaa ka dambeeya waan xidhayaa ama qasab buu ku baxaya 1902 markay marayso qarnigan la soo gaadhay ayuu Herzl mar kale isku dayay inuu Cabdilxamiid la kulmo deyntiina waa kaa bixinaynaa dhibtaydan haysato dhan waa idinka saaraynaa noo oggolow inaanu degi karno falastiin wuxuu isa soo taagay dhulka kan taaka ka mida inaan idin siiyo ma awoodo dhulkan anigu ma lihiya ummaddaale buu yidhi dhiiggeedii baanay ku furatay yahuudi malaayinteeda ha iska haysata buu ugu jawaabay wakhtigaa wixii ka dambeeyey 1903 markay marayso ayay bilaabantay oo dawladdiina aad u daciiftay yuhuuddu inay qarqarsoodi ku soo gasho xaakimadan hoose ee meelahan jooga in la laaluusho oo deganaanshiya la heli karo markaasaa laga sameeyey kiibutiskii ugu horreeyey kiibutisku waa sistemadii ay ku soo degeen yuhuuddu meesha tan wax weeyaan koox yuhuuda community baa isa soo raacaya dhul yar baa la siinayaa iyo beertaasay wada beeranayaan yaddu caamila bay ahaanayaan qaanuunkooda isku xukumayaan meeshana kama baxayaan waa giito yar oo beeraleeya giitadii koowaad oo iskaashatadaasi ah ayaa laga sameeyey 1907 1909kiina waxaa bilaabmay yaava dhankeeda waqooyi magaaladan talaabiib hadda la baxday ayaa la bilaabay iyana kiibutsiyadii ku xigay yahuuddu markaas xisbi taraqi walitixaad ayay xoojiyeen mustafa kamal ataturk iyo qoladii uu hogaaminayey dabeetana 1908 baa cabdilxamiid la inqilaabay muddo yar kadib shacabkaa kacay hawra shacbiya baa dhacday qasab baa loogu soo celiyey boqorkii madaxtinimadii laakiin ciidamo uu mustafa kamal ataturk ka talinayey oo uu hogaaminayo nin ciraaqiyaba nin caraba oo la yidhaahdo maxmuud saami baasha ayaa soo dhaqaaqay waddankii qasab bay ku qabsadeen meeshii jamhuuriyad baa loo beddelay khilaafadii islaamiga ahayd 3 March 1924 baa la baabi'iyey mukhatadaadkii yahuudi iyo kuwii sahyuuniyadu markaasay bilaabmeen hadda waxaan rabaa haddaba inaan ka warramo waa maxay xidhiidhka ka dhexeeya yuhuud iyo yurub ama xidhiidh ka dhexeeya yuhuud iyo israa'iil sidee bay se ugu qanciyeen israa'iil yurub inay sidan u taageerto ay waajahow noqdaan haddaynu eegno masiixiyadii hore siiba labadii qole ama orthodox ama catholic ahaa waxay rumaysanaayeen ciise inuu sixiroolo ahaa bidcoolo ahaa fitna dawladda uu ku wado hooyadiina inay zaaniye tahay dabeetana maxkamaddoodii la odhan jiray asanhadariyiin sanhadariyiintu waa 70 oday oo 70kii nebi muuse raacay bay ku qiimeeyaan fadlan ha la aamuso haddaydan aamusi karaynin waxba sheegi kari maayo qof waliba isaguun ha aamuso cidna yuu aamusiini maxkamadda ay lahaayeen nimanka yuhuudeed oo ka kooban 70 oday iyo kaahina isugu jira iyo boobkooda ama wadaadkooda ugu weyn ayaa waxay go'aamiyeen nebiyullaahi ciisa iyo 2 tuugoo kale 3daa in la salbiyo nebi ciise iyo 2 tuugabaa markaasi la salbiyey iyagu may salbin karaynin ninkii romaniska meesha uga talinayay bay u tageenoo bilatus la yidhaahdo waxay yidhaahdeen waxaanu gaadhnay xukumaa 3dan qof in la salbiyo waxaanay lahaayeen iyagu xukum daati iyo waxuu eego hoose boqorkaasi wuxuu ku yidhi markaa
anugu waxaan u arkayaa inuu bari yahay ninkan aaleedin hal la salbiyo ee hubiya arrinka kan waxay yidhaahdeen weedha caankee ah damuhu calayna wa calaa awlaadina dhiiggiisa annagaa dusha ku qaadnay iyo carruurtayaduba ee ciise ha la dilo waana ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamayo وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم يدو يهودي أي ساسي اعتراف سنتي باعترافهم إليين عيسى وادل هو يدينا يعيبتك الشيغيان تلمود كودنا وقرن يهي عيسى المسيحين دينتي يهودا كر الدوبي oo sanama caabudo masiixi kastoo dunida ku noolna inuu wathani caduwun lilaahi walilyahuuda yahayba talmuudkooda ku qoran waxaa isqaban la markaas hadduu arrinku sidaa yahay iyo haddana maanta kiristanku inuu taageeraa xaggay ka soo baxday cadaa shadiida baa u dhaxeeya yuhuud qur-aankuna waa ka tilmaamaya waqaalat alyahuudu laysat الnasaara calaa shayin waqaalat الnasaara laysat alyahuudu calaa shayin yahuud masiixiyiintu markay meesha haysteen way ka saareen baytulqudus iyo falastiin iyo waxaan oo dhan waxaa ku soo celiyey 612 dowladdii bershiya ayaa ku soo celisay yahuuddii la socotay waxaa la yidhaahdaa ilaa 60,000 oo kristan ay qudus gudaheeda ku dileen baa la yidhaahdaa kiniisat alqiyaamana dab bay qabadsiiyeen waxaa dib tobaneeyo sano kadib dib u soo celiyey heraklis isna waa ka aargutoo nimankiina waa laayey kristanna meeshuu ku soo celiyey yuhuudna wuu ka saaray falastiin dhammaanteedba waxaa yuhuuddii labaad soo noqotay been idhi xuruubu saliibiya wakhtigeedii laakiin xuruubu saliibiyu kristan baa ku soo noqday ee yuhuuddii iyana waa u diideen marka qura ee taariikhtaa loo oggolaaday inay falastiin yimaadaan waa salaaxuddiin alayuub iyo wakhtigiisii markii ay joogtay intaa kadib haddaba waxaa soo baxay madhab cusub oo diineed oo protestant la yidhaahdo madhabkaasi cusubi waxa uu la yimi fikrada ah yuhuudi inay ammaanan yihiin ee wax dembiya inaan korkooda la saarin bale waxay ku dirqiyeen xataa faatikaanku inuu ka noqdo inuu ka beri yeelo yuhuud damu masiix siday tani u dhacday marka martin luther waa nin wadaad u dhashay waddanka jarmal dabeetana madhabkan buu la yimi calvin nin la yidhaahdo faransiisaa taageeray protestantka dadka la yidhaahdaa ilaa 7 branch 7 caa'iladood bay u qaybsamaan 28 ilaa 40 madhab ama kiniisadina way hoos timaadaa waxay kaga gedisan yihiin caqaa'id cusub bay la yimaadeenoo kow waxay kaga gedisan yihiin inaan loo baahnayn wadaadkii boobkee dembiga dhaafi jiray waxay yidhaahdeen qof wal oo ciise rumeeya ciisaa dembigiisa dhaafaya mar haddaad rumayso inuu mukhallis yahay intaasaa kugu filan bay leeyihin camalba looma baahno kale rumayntaasi baa dembigaaga lagu dhaafaya laba waxay la yimaadeen sulطadii tacliimiga ahayd maalan katholigu wuxuu rumaysnaa boobkunbaa fasiri kara kitaabka saa daraaddeed 1000 sannadood dadku may arag kitaabkuba meeluu yaallo wuxuu qudhay dhex yaallay kiniisadda wuxuun baana fasiri karayay boobka iyo gurubkiisa waxay dhaheen taana waxba kama jiraan qof waliba kitaabka wuu fasiran karaa waanu akhrisan karaa waxay ahayd wadaadada diintu inaanay guursanin waxay dhahdeen waxba kama jiraan wadaad kasta oo protestant ahi waa guursan karaa waxay ahayd injiiloo qura in la haysto waxay dhahdeen waxba kama jiraan cahd alqadiim iyo cahd aljadiid oo wada socda waa in la haystaa king james version bay la yimaadeen iyo arrimo la mida si dadku uu kitaabka u akhrisan karo waxay faafiyeen yurub markii ay ka bilaabmeen tacliimka sida ogeed jaamacaadka qadiimka ee yurub ama maraykan dhammaantood wadaaddo kristana sameeyey harvard university john harvard baa sameeyey nin la yidhaahdo wadaad ahaa marka la eego jaamacatu yiil jamaaca min rijaali diin baa samaysay
marka la eego Princeton كنيسة المشيخية أيها سمايسي بنسلفانيا يونيفرسيتي مركا لأيغو كنيسة الأسقفية با سمايسي جامعة كولومبيا الكنيسة الأسقفية با سمايسي جامعة براون الكنيسة المعمدية با سمايسي كامبريدج يونيفرسيتي أوكسفورد يونيفرسيتي لما أنتو دو حسميي جامعات كايمك الله أمانو وداددي بروتستانت كاها أو الربي دادكو إني وحبران كران انت وحر راعدة دول دن oo Scandinavian-ka Canada Australia Ingiriiska Maraykan duwal dhan baa qaatay madhabkan Protestant-ka innaga maxay naga khuseeya madhabkan Protestant-ka markaas aanu sheegaynaa waxay naga khuseeya saddex shay oo aanu Kristanku rumaysnayn bay iyagu rumeeyeen saddexdaa shay waxaa ka mid ah kow yuhuudiinay tay shacbullaahi almukhtaar wa abnaa'ullaahi wa axibaa'uh يهودي شعب إلهي دورتي أو ولي مدن أو مدنانتا هايستين يهين كاللبات واحدة يهود إلهي باب بلن أبياشد أوسيي إبراهيم إسحاق يعقوب عهد أبدي يكسيي فلسطين يقولين تاسينو عقيدة الدين هذا بروتستان أو من الرويسين كصدحات واحدة هذين عيسى إله عيسى سيد وصار نغضا كما يزعمون عيسى هو إيمانيا كن سنضوضو الدنبا دونيدو برواقا كن نولانيسا صون نقون مايو هدان سدح شيء لهلين عيسى صون نقون مايو هدان سدح شيء لهلين كو غير بنو إسرائيل فلسطين لسيو أو يقف صدام فلسطين لبا قدس إني كتاليان صدح هيكلكي إن laga dhiso بناء الهيكل القدس laga dhiso saddexdaas shay oo dhacam mooyaane nabi ciisana iyagu say sheegayaan de ilaah bi ku tilmaamayaan soo noqon maayaan sida awgeed si loo dadajiyo ilaahay inuu dib dunida ugu soo noqdo waa inay duwalka kristanka ay qaataan madhabka odhanaya falastiin waa in yahuud la siiyaa bayt almaqdisna waa inay yeelataa heykalkiina waa in laga dhisaa halka kiniisa alkatholikiya أما كنيسة الأرثوذكسية لبدا كنيسة ضد كلا الروميسنايين وارعهد جاسي واهر وداعي مسيح العيسى وي بينيين وادلين سيجو قبان إن إسقى مخلص إلى هيدول كوكين يبيلين عيسى أنا شيء بيلين إن أورشليم لخرابين أيو هيكل كين للدمين أيو يهود لإري أيو دم بجود الدرادد نبوءات كانت شيء سنبر هريد عدو قرش نكى بقركي كتليني بيرشيا markii uu dib u qabsaday meesha tan bay nubuu'adanina dhacday bay leeyihiin oo nubuu'adan baanu ka sugaynaa ma jirtay yuhuud waa tii lagu soo celiyey baytul maqdis mar labaad waa tii haykalka laga taagay tafsiirkiinan waxba kama jiraan bay leeyihiin laakiin caqiidadani waa caqiidadii uu inta badan faafinayay alqadiis agustiin waana caqiidada maanta ay rumaysayiin dowladda maraykan dowladda ingiriis scandinavianka australia canada all protestant people waa caqiidada ay rumaysayiin caqiidadani goormay bilaabantay waxaa jira niman kristan ah oo ka sahyuunisan yahuudda waxay ku tilmaamaan christian zionism baa la yidhahdaa christian zionismku isagaa ka adag yahuudda waayo yahuudda ragga aasaasay intooda badani diinba may haysan hertisel mulxid buu ahaa benigorian mulxid buu ahaa maayir habartii golden maayir mulxidad bay ahayd موشا ديان ملحد بوها وايزمان مدحوينه هذيك كواد ملحد بوها يعني كله انتو هذا مقع عليه وحلت الماما وضيقي بيغن لورن شيرو قربا وح سلاتو كدي كوشيري بيغن با وح كنيستك يو سلاتو كدي كوشيري حتى اسحاق رابين كي قابنا ملحد بوها بيلين مركا الدين هام با ما يقول رميسنين لكن منك الدين هان الرميسن بهشتن اي دين تكتهي وكريستيان زيونيسم كا Christian Zionism kani wuxuu bilaabmay waddanka Ingiriisku ka bilaabmay waddanka Ingiriis inuu kiniisadan Catholiga ka go'o waxa sabab u ahayd boqorkii Henry sideedaad la oran jiray ayaa u baahday islaantiisii inuu furo islaan kala guursado dabeetana kiniisadii baa diiday Romanski baa aqbali waayay dabeetana waddankaba uu ka jaray
mid kaluu guursaday waa xaaraan bay dhaheen talabaadaad guursatay tii kaluu haddana ka takhallusay mid 6 dumaruu guursaday kolba midna waa dilayay midna waa wuxuu odhanayay guurkii horaana sixin markaasuu mid kale iska guursanayay boqorkaasi markuu halkaa maray ayuu wuxuu u rogay ingiriis oo dhamm inay injiiliyan noqdaan inay ka baxaanba kiniisadda kaatooliga ah wadaadkii boobka ahna wuxuu yidhi henry iyo wuxuu dhalay ilaa abadi la aabidin ilaahay naxariistiisa waa ka mamnuuc oo kiniisaddu tardi ayay isagana ku xukuntay waxaa ka bilaabmay waddanka ingiriiska maalan ninkii la odhan jiray thomas brightman waa nin caalimu laahuud yahuudi asalkiisuna ahaa kitaab buu qoray uu kaga warramayo axdaasta dhici doonta aakhiru zamaanka kitaabkiisa wuxuu ku soo bandhigay fikraddii ahayd in allaha yuriidu cawdata alyahuudi ilaa falastiin waan yaxkumuu ilaahay wuxuu rabaa yuhuud in falastiin lagu celiyo oo ay bayt ilmaqdis xukumaan oo haykalkii ay dib u taagaan si ciise u yimaado oo 1000 sannadood ciise dunida uu xukumi karo fikraddaa waxaa sii qaatay niman la yidhaahdo puritanis almutatahiruun waa jamaaco brotestanka ka mid ah oo ku dhawaaqaya hadda wakhtigaynu joogno 350 sano ka hor in ka badan ayay iyagu waxay faafinayeen fikradda ah yahuudinimada in la nooleeyo bal ee dowladda ingiriis waxay u soo jeediyeen towraad in dastuur looga dhigo waddanka ingiriiska towraad in dastuur looga dhigo waddanka ingiriiska bay soo jeediyeen waxay soo nooleeyeen luqa alcibriya waxay la baxeen magacyo cibriya ninkii la odhan jiray majmuuco la yidhaha leverels ayaa fikraddaas keentay dowladda u keentay iyagoo leh towraad ha laga dhigo dastuurka waddanka ingiriis inuu noqdo laba wadaad oo kale oo cilmi laahuudka ku takhasusay ayaa iyana mudakaro kala qoray oo dowladda ingiriis u soo bandhigay iyagoo leh shacabka ingiriis iyo shacabka Holland sharaf waxa ugu filan carruurtii reer banu Israa'iil inay doonyo ku soo qaadaan oo dhulkii ilaahay u yabohay ay geeyaan waa 1649 marka dowladda ingiriiska la hordhigayo barnaamijka ah in la soo raro yuhuudoo la geeyo falastiin markaynu eegno mafaahiimtaasi jadiidka ah ninkii la odhan jiray cromwell waa ninkii thawradda ku sameeyey boqorkii ingiriiska jamhuuriyaddii koowaad ee ka dhalata waddanka ingiriiska markii la samaynayey wuxuu ka khudbadeeyey whitehall meel la yidhaahdo westminsterka u dhow waa 1655 waxa uu ku dhawaaqayey yahuudda in baraytaaniyana dib loogu soo celiyo waayo ingiriiska qoladan hortood 3 qarni ka hor ayaa laga mamnuucay waddanka ingiriiska in yahuudi degto dabeetana wuxuu soo tarxinayaa oo boqorka u sheegay in qaanuunkaa la saaro oo yahuudi waddankan ay soo degi karto waxay yidhaahdaan sir henry finch oo mustashaar qaanuuniya u ahaan jiray ninka boqorka ingiriis ayaa 1621 isna buug buu qoray uu kaga warramayo the world great restoration isna waxa uu kaga warramayaa yahuud al-umma al-yahuudiya in la geeyo la ictiraafo waddan la siiyo soo duuduub faransiiskiiyo intii kaatolig ahayd si ay u gashayba iyagoo kaatoligiya ayaa iyana fikradda markii dambe ay ku faaftay ilaa iyo kutaabtoodii nin ka mid ah philip gentle nin la odhan jiray ayaa wuxuu soo jeediyey dowlad faransiiska wuxuu jeediyey fikrada ah qudus in roome lagu beddesho yahuud si aynu qudus u siino roome aan muslimiinta siino markii dambe waa lagu kaco isagana waaba la deldelaye yacni fikradahaasi waxay soo abuurmeen wakhti aad u horreeyey xataa haddaynu eegno falaasafadii ama udabadii yurub orshalim iyo siday ugu gabyayeen gabyaayadoodii waaweynaa waxaa ka mid ah milton lord byron william back alexander bob coleridge george eliot jack bosi racina waxaasoo dhami waa dadkii ku heesayey ku gabyayey orshalim alyahuudiya
xataa falaasafadii wakhtigaa noolaa kuwa la yidhaahdo aad bay meesha tan iyana uga hadlayeen Pascal baa ka mida Kant baa ka mida Newton baa ka mida Jack Rousseau baa ka mida sida ay kaatibadda Regina Sharif kitaabkeeda ay ku soo bandhigtay waxaasoo dhan markaynu isu geyno waxa weeyaan dowladda Ingiriis caqiide aan yuhuud meeshaa lagu celiya bay qaadatay shacabka Protestankiina meel u degan yahay fikraddaasa laga dhaadhiciyay in badanna waa loo howlgalay si ay fikraddaasi u meel marto buugaag aad u tiro badan baa laga qoray in fikraddaasi ay howl marto maalan markaan eegno Lord Shaftesbury waa Earl of Shaftesbury miyaa la yidhaahdaa nin lord u ahaan jiray wuxuu qoray daraaso 30 page ka kooban oo uu soo bandhigayay madaxtooyada waddanka iyo dowladda Ingiriis waxay fikraddaasi ka warramaysaa waa ninkii soo saaray eraygana ah watanun bilaa shacab lishacbin bilaa watan buu ka hadlayaa waa awal marra fi taariikh weedhan la maqlo waddan aan dad lahayn iyo dad aan dhul lahayn ha la isla raadiya buu leeyahy yuhuudi waa dad aan dhul lahayn waddan aan dad lahaynina wuxuu ka dhigayaa inuu yahay Falastiin fikradda caynkaasi iyo siyaasiyiintii waaweynaa ama rijaal الfikri fi Britaniya oo uu ka mid yahay Duke of Kent oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaarahoodii Gladstone lo odhan jiray ayaa aad ugu qancay fikraddaasi mudday ka dhex socotay ilaa xad ay gaadho inay siyaasiyiintoodu ku qancaan fikradda odhanaysa Falastiin waynu yuhuud siinaa masaalixda Ingiriiska ayay u adeegaysaa oo dawlad Cuthmaaniyana way daciifinaysaa dawlad Carabeed oo muslim oo xoog leh inay dhalatana way diidaysaa markaa waxa isku darsamay bay yidhaaheen siyaasa mikafiliya iyo sahyuuniya almasiixiya baa isku darsamay oo ah masaalix ay nimankii siyaasiyiintii ka dhex arkeen iyo nimankii Protestanka diin ahaan waxay ka dhex arkeen saa daraaddeed ayay fikraddani xoogaysatay ilaa xad ay gaadho mashaariic dawladdu ay soo bandhigto inay noqoto kutub aad u tiro badan aanan hadda wada akhriyi karinna laga qoray mas'alada tan wakhtigaasi maalan Lord Palmerston Lordka la yidhaahdaa oo wasiir khaarijiya waxay samaysteen Ingiriisku qunsuliyad bay Qudus ka samaysteen waxaana loo sameeyey qunsuliyadda nin William Young la yidhaahdo oo sahyuuni masiixiya ah waxaana loogu talagalay inuu ilaaliyo jaaliyadda yuhuudeed ee Qudus degan waa 1838 taqriir buu soo diraya dawladda Ingiriis uu sheegaya meeshaba waxa yuhuud ka degan 9690 yuhuuda baa meeshaba degan buu leeyahay Falastiin oo dhan waa Ingiriisku wuxuu qorayay ma aha muslim wuxuu qorayo waliba ay qorayso safaaradda Ingiriis ee meesha ku taalay taasi waxay abuurtay in dawladda Ingiriis iyo boqortooyadoodii iyo waxoodii oo dhamay arrimahaasi ku dadaalaan yahuuddu wakhtigaasi shakay ka qabeen inay Falastiin degaan saddex sababood daraaddood waxay soo arkayeen inay ducafo yihiin hadday meesha tagaanna wixii yuhuudda hore ugu dhacay inay ku dhacayaan oo dad badan oo yuhuuda inay Cuthmaaniyiinta iyo Carabtu layn doonaan qodobka labaad waxay yuhuudda markaa ugu muuqatay tacaalimta talmuudkoodu inaanu dhigaynin waa hore waxa soo baxay nin la yidhaahdo ibnulkawkab ama barkuuba ay ku tilmaami jireen oo sheegtay masiixii inuu yahay muntadirkee yuhuudi ay sugaysay oo Falastiin inay ku noqdaan isku dayay waa qabla alislaam 130 miilaadiga meelaha markay maraysay dabeetana imbaraatorkii Romania mariyay kadib waxay yidhaaheen wixii waagaa inugu dhacay mar labaad inuu inugu dhaco ma u diyaarnihin talmuud baana noo diidaysaa qodobka saddexaad waxay u arkayeen masiixa iyaguna sugayaan iyana masiix kale sugayaan masiixay sugayaan oo yimaado mooyaane inaanay bannaanayn yuhuudi inay ku noqoto meesha waana caqiidada ay hadda rumaysayiin malaayiin ka mida yuhuud waa kuwan Israa'iil ka soo horjeeda ee yuhuudi waa caqiidada rumaysayiin laakiin qoladan sahyuuniyadu waxay ku qanciyeen
sida wilaayatulfaqiihii shiicadoo kale cid ka sii wakiila in la heli karo meesha sii joogi karta in la heli karo. waxaan ku soo koobi doonaa wakhtigaas kaba dhammaanayee maadaama yuhuudi dilal badan ay la soo kulantay inaanay hunguraynin inay meesha ku noqoto. markii qaysarkii aliskandar la dilayna 1 milyan iyo dheeraad yuhuuda baa ka soo hijrooday, laakiin urub algarbiya baa istiri ku cadaadiya in falastiin la geeyo, way ka sii hijroodeenoo maraykan bay iska tageen. 90gii markii haddana ay yuhuudda kale raashiya ka soo hijroonaysay, brotestanku waxay u arkeen markii horey fursaddaasi dhaaftay inaanay mar labaad dhaafin, waa loo diiday yurub iyo maraykan inay degaan, waxaa loo fasilitayt gareeyey in la dejiyo israa'iil. milyan iyo dheeraad baa berigaa dhoweydna meesha la dejiyey. caqiidadaasi ay ka dambeeyaan nimankaasi christian zionistku oo aan odhan karo waa madaxdii ingiriis waxay rumaysnayd. winston churchill baa ka mid ahaa kuwii rumaysnaa oo wuxuu lahaa 2 calaamo oo la helo mooyaane yuhuud in meeshaa lagu celiyo waa raggii ku dhawaaqayey. lawrence oliphant baa ka mid ah oo buug qoray land of jalcat la yidhaahdo oo masaladan kaga warramayo. weliba kani buuggu qoray wuxuu leeyahay carabta meesha degganna sidii loo galay hunuudulxumarkii maraykan degganaa ha loo gala buu leeyahay, qiimo ma lehe. fikraddaasi weliba wuxuu ka dhaadhicinayey ra-iisul wasaarihii baraytaaniya desraa'iil la odhan jiray iyo wasiiru khaarijiyadiisii lord salisbury la odhan jiray ayuu fikradda u soo bandhigayey oo loo keenay ilaa dowla alcuhmaaniya lagala hadlay. markaan soo koobo, yahuud waxaa meesha keenay waa christian zionism. yuhuudi kadib waxay soo dhiiratay markii uu ku guulaystay ingiriisku wacdi beenbeena inuu u qaado carab oo ku yidhaahdo dowladnimaan idin siinayaa dagaalkii koowaad ee dunida, laakiin waxaan idinka codsanayaa turkiga inaad dagaalkiisa ila gashaan, iyadoo la leeyahay turkiya may jebin karaynin ciidamadoodu qaabkay u dhisnaayeen. laakiin carab baa waxay aqbashay tareenka xijaas iyo istanbul isku xidha oo caalamalislaami oo dhan ciidamada turkiga ee jooga zaadka u sida inay gooyaan. tareenkaa markay gooyeenna ciidamadii ay lahaayeen turkiga iyo caalamka carbeed baa kala go'ay, dabeetana waxaa la jebiyey ciidamadii meesha tan. wakhtiga carab uu sidaa u sheegayaan, xagga kale wacdu balfoor baa socday oo dowladda maraykan iyo wilsonkii maraykan ayaa isku waafaqay carab inaan waxba la siinin, laakiin yuhuudiin meesha la dejiyo. carabna waxaa loogu warramayaa dowlad in laydin siin doono. taariikh badan oo baabkaasi ku saabsan sisbeacon iyo wacdu balfour waxay u baahan tahay runtii in si gaara looga warramo, laakiin uun muslimiintu iyagaana isjebiyey. meeshana yahuud waxaa keenay ingiriis iyo yurub iyo waddanka maraykan oo madaxdiisii u dambaysay iyana ay qaateen christian zionismkaasi ay qaateen madax badan oo maraykanku u lahaa. labadaa guruuboo isu tegey baa meesha tan dejiyey, iyagaana go'aansaday. dadkii go'aansaday inay yuhuudda meesha dejiyaanna weli waa loo dacwoonaya, iyagoo qorallada qaarkood ay tilmaamayaan sida red indianiska loo xaaqay oo kale in loo xaaqo. maraykanna intuu vito isticmaalay intii united nation jirtee ugu badan 40 ka mida qadiyadda israa'iil buu ku isticmaalay. 40 vito ayuu ku isticmaalay qadiyadda ay leedahay. marka qudus gaala qaadatay, israa'iilla wakiil bay uga tahay. yahuudi ma taagnaan karto ka dowla bani israa'iil, waanay rumaysnayn yuhuud oo dhan in badan oo ka midi, laakiin waxay u taagan tahay danaha reer galbeedka inay fulinayso. danaha reer galbeedka inay fulinaysay u jirtaa. inta reer galbeed danahooda uu ku jirana taageeradooda way joogaysaa. sala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.